Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada asxaabta. Sanad waliba oo dhammaada waa mid lahaa qisooyin iyo dhacdooyin u gaar ah oo inta badan lagu soo xasuusto sina looga sheekeeyo dadka aan la noolayn berigaas. Isla ahaantaana waa mid ka duwanaada sanadadii lasoo dhaafay. Waxaan kula wadaagi doonaa dhacdooyinkii ugu la yaabka badnaa ee sanadkii 2020 guud ahaan dunida oo dhan iyo waxyaabihii ka dhacay gobollada ay Soomaalidu degto. Haddaba si aynu isula jaanqaadno soo booqashada kanaalkan haddii tahay markii kuugu horeysay, fadlan subscribe saar, videoguna like saar, lana wadaag asxaabtaada adigoo share gareynaya muuqaalkan. Mahadsanid. Dhacdada koowaad, Australia. Horaantii sanadkii 2020 wax ka dhacay Australia dab aad u xooggan oo gebi ahaanba baabi'iyay dhul ku dhow 450,000 oo hektar oo u badan dhul kaymeed, halka uu gebi ahaanba saameeyay xayawaanadii halkaas ku noolaa. In ka badan 120 qof ayaa ku dhintay. Guryo gaarayay 2,920 guri ayaa gebi ahaanba ku burburay. Dhacdada labaad, coronavirus. Dhammaadkii sanadkii 2019 markii ay sii gabaabsi ahayd bishii Disembar ayuu bilaabay socdaalka safarkiisa uu ku gaari doono dunida oo dhan. Ugu horeyn waxuu ka soo kici magaalada Wuhan ee dalka China. Calaamadihiisu waxay la sinaayeen durayga marka laga reebo neefta oo qofka ku dhegta. Toddobaadyo gudahoodna waxa uu si xawli ah ugu fiday caalamka intiisa kale, isagoo awood yara biday waddamadii awoodda sheegan jiray. Waxa uu sabab u noqday inay ku dhintaan dad gaarayay 1.61 milyan oo ruux. Tirada dadka uu ku dhacay ee ka bogsaday waxay ahayd 47 milyan oo ruux. Dhacdada saddexaad, dhacdadii Ayaxa. Sanadkii 2020 guud ahaan bariga Afrika, gaar ahaan gobollada ay Soomaalidu degto, farxad uma ahayn. Waxaa saameeyay gebi ahaanba dalagyadii ay beerteen ayax aad u fara badan oo dhammaanba baabi'iyay dalagyadii soo go'i lahaa. Walow 2020 lagu jiray karantiin lagu xakameynayay coronavirus, maysan jirin isu socod bulsho, taasi oo warwargelisay waxay quudan lahaayeen mustaqbalka bilooyinka soo socda. Beeralaydii uu ayaxu ku absaday, balse waxaad ogaataa naf waliba oo nooli inuu Allah tabaaraka wa tacaala ugu talagalay quud ay cunto. Dhacdada afraad, George Floyd. Sanado badan waxaa Mareykanka ka dhici jiray tacadiyo waxyeello ahayd oo lagula kici jiray dadka madow. Dilkii George Floyd waxa uu ahaa mid dhaliyay rabshado socday toddobaadyo, isla ahaantaana dunida inteeda kale la yaabtay. Fadlan ma neefsan karo waa hadalladii ugu dambeeyay ee uu lahaa George Floyd waqti uu sarkaal ka tirsan ciidamada Mareykanku luqunta kaga hayay jilibkiisa. Dhacdada shanaad, madaxweynaha Faransiiska. Bilooyinkii ugu dambeeyay ee sanadkii 2020 caalamka Islaamka wax laga dareemay dhiiranaan iyo midow bulsheed iyo mid ay tuseen caalamka intiisa kale inay isu mowqif yihiin dhammaanba muslimiintu. Kadib markii madaxweynaha Faransiisku caayay subanaheenii Nebi Maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, waxaana dhacay isu imaansho bulsheed oo lagu difaacayay sharafta Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam. Dhacdada lixaad, madaxweynihii cusbaa ee Mareykanka Joe Biden. Muddo 4 sano ahayd oo xilka hayay madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa cadaadis xoog leh ku hayay dhammaanba muslimiinta, isagoo cadaadis muuqdana ku hayay Soomaalida. Ka tegidda xafiiska madaxweynaha, dhammaan Soomaalidu waxay u aragtay mid farxad gelisay iyagoo rajeynayay in Joe Biden uu la dhaqmi doono si ka duwan sidii uu la dhaqmi jiray madaxweynihii hore ee Mareykanku Donald Trump. Balse Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa geed waliba dheecaankiisa ayuu dhalaa. Ugu dambeyn, waxaan kaaga mahad celinayaa dhamaysashada muuqaalkan. Fadlan soo booqashada kanaalkan haddii tahay markii kuugu horeysay, subscribe saar, videoguna like saar, lana wadaag asxaabtaada adigoo share gareynaya muuqaalkan inoo muuqaalka kale. Mahadsanid.